wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii diiniga ahaa ee su'aalaha aan ku weydiin jirnay Sheekh Dr. Ahmed Yamani oo marti ku ah stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. waxaan jeclahay marka hore in sheekha aan soo dhaweey sheekhu soo dhaw ما شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله إلهي كحفظي ودوحي وأنا وذا السلام ولا لها أديك ولا لها تي في ولا لها داون دونابو الله يبارك دماتينا شيخ سؤالها تطبيقات كان aad bay u fara badan yihiin laakiin intii aan ka gaarnayaan aan daawadayaasha aan u sheegi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo su'aasha ugu horeysa waxay leedahay sheekh hooyaday waxay rabtaa in mar walba aan biilo oo bil joogto ah aan u diro aniguna ma awoodo sababtoo ah waxaan leeyahay xaas iyo caruur qurbahana waa joogaa gaari aan xaaska u soo qaaday oo cusub na payment ayaan bixiyaa lacag gaaraysa $700 bishii sidoo kale biilal kale ayaan xaafadda iyo guriga ku bixiyaa sheekh hooyaday haday lacag la inkaartaas miyay qabanaysaa maxaa sameeyaa بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله runtii su'aashan waa arrin laga naxawaaye qof hooyadiisa dhahayo waxaan siiyana ma haayo caruurteedana waxaan siiya waa haaya guriga u jaaray biilna waa siiya xaaskana waa biila bal intaas ka daran waxa uu soo qaaday gaari braniyo soo qaaday oo payment aan ka bixiya qofkaas waxaan dhihi lahaa horta markuu wad isku noqo gadaal isugu noqo caasinimo hadii jirto taas waa caasinimo waay hadii caasinimo jirto subhanallah dadku waxaa la yaabana sometimes hooyadii dhashay oo caloosha ku soo waday 9 bilood soo waday nuujinaysa intaan la soo ekeysay markuu soo weynaado gabar yar markuu arko uu guursado oo meel kale ka timaado hooyadii familka dhan buu hilmaama oo gabadhan hadda isbarteen birina ay kala tagi karaan oo hooyadiisa laga yaabo inuu u gooyo taas waa caasinimo waay meesha ugu weyneed waay gabadhan xaq ay leedahay ilaahaasi hooyadana xaq ay leedahay ilaahaasi ma isoo gala mana istaabtaan hal hooyo adduunka ka jirto hal hooyo leedahay hal qof baa calooshiisa ka soo baxday oo korkooda ku soo saxarood ku soo kaadisay naasna ku soo siisay intaana kula soo ekeysiisay halkaas qof waa marka qofka lagaaga baahan yahay in ixtiraamtid run sometimes waxa ka yaabaysa qofku wuxuu ku leeyahay xaaskii waa biili karaa kan waa biili karaa laakiin hooyadii يعني waxay ku tusaysaa hooyada biilkeeda inay culays ku tusaysaa culays hadiisan culays ahaa lahayn ilmaha biilkooda ba kama sheekay ma cabaado xaaska dhiibkooda kama cabaado ijaarka la bixinay kama cabaado taas waxay ku tusaysaa culays inay ku tahay qofkaas waxaan dhihi lahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baq gadaal isugu noqo wallahi sa hooyada u gashida ayagana ku galayeen biri caruurtaada mujeeda meesha dhihus wax walba asiinaysid saa u gashid hooyada iimaanta ka arkayna idin ku galayeen xaaskan hooyada saan hortaada uu galaysid agteeda qiimo kama leedeed ku talagal dadka qaar kood waxa la inuu xaaskiisa rabo inuu ku soo sabo soo hooyadiisa inuu xumay xaaskiisa ku soo saba waxaan rabaa inaan dhaho qofkaas xaaskaaga agteeda wallahi qiimo kama leedeed waxa qalbigeeda galaaya ninkii tii dhashay saan u galaybo ani birisaan oo kale uu gali karaa marka waxaan dhihi lahaa nimano gadaal isugu noqda ilaahay laga baqo hooyada teeda su'aalni soo gashay maba ahanba biilkeeda waajib ku saaran waa dadka qaar kale hooyadii u baahan hadii u baahneen si $100 ku weydiisay si konton ku weydiisay ha u baahnaat iyo u baahan adil ugu madirsan adiga waa u baahneen markeeda waxa dhigi jirto kana u baahana oo ku soo gadi jirto oo ku siin jirtay waay maanta markaas soo weynaa saas sameynaysaa run su'aasha laga naxawaaye inkaar hadiisan ku inkaana hatta saas aba caasi ku tahaybo hatta hadiisan ku inkaar uma baahno hadii ku inkaar hatta saas caasi ku tahay qofkaas Ilaahay u toobad keeno qofkii asigu diidis ku socday Ilaahay u toobad keeno hooyooyinkii abooyinkana hal ilaaliyo wallahu a'lam way sa'ilkan wuxuu leeyahay sakada weliga ma bixin sababtoo ah waxaan u haystay in laga rabo oo kaliya dadka taajiriinta ah ee ganacsiyada waaweyn leh laakiin markii dambe ayaa waxaan arkay qof aniga kala ah amba aan ka lacag badanahay oo saka bixinaya sheekhu saka goormee lagu yeelan karaa maxaa sameeyaa nin noocaas ahay بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله runtii zakada walaalaha daawana waxaan rabaa inaan dhaho zakada waa rukni kamid ah arkaanta islaamka oo shanta ah arkaanta islaamka waa shan shahaadada salaada zakada soonka xajka zakada markaas number 3 soonkii xajka 4 ama 4 kala galo laakiin zakada marka salaad iyo zakada waa la isku qabtaayba zakada qofka goormay walaalayaal si fiican daawo su'aashan aad u soo noqnoqota ani xataa mar badan la isoo weydiiyay su'aashan waxaan rabaa inaan si fiican u dhageysto zaka ku waajibta
qofka qani inuu noqdo miyaa qasab ma ahan qofkii haysto 82 garaam dahab qiimihiisa wixii u dhigmo 82 garaam haddaan dhahno maanta waa $50 haddaan dhahno 4,000 iyo xoogo inay noqotaa laga yaabaa soo maahan $50 haddaan maanta aan gaarsiino haddii 82 garaam oo dahab ah qiimihiisa account kugu jiro kow sanadna ay ka soo wareegtay labo zaka waajib kugu ah zaka waajib kugu ah maanta ay tahay taariikhda hebel ay tahay ramadaan koogeeda ay tahay sanadka 443 ay tahay waxaa account-kii galay $10,000 gashay next year la gaaray 9,000 ku jirto nisaabka wuu gaaray 9,000 kun markaas ku jiraan ka bixina meeqaan bixina ku soo 2.5% ku dhufana 2.5% si kala ka fudud dan ku sheegan waxa waaye hadii zakada nisaab gaarto sida ugu fudud oo hadaa 2.5% ku dhufsay dhibay ku tahay inta ku taala 40 u qaybi 40 marka uu qaybisid 39 iskale nicmada fiiri macnaheeda waxa xoolahaaga waxa lagu 10 meel u qaybi $100 haysta 10 meel u qaybi waxa lagu yiri $90 adiga meel dhigo maxaa soo heeray $10 $90 adiga meel ku taala maxaa ku soo heeray $10 $10 hadan waxa lagu yiri 4 u qaybi nus ma bixinaysa maya saddex hadana meel dhiga hal meel ka bixi ya subhanallah si u fududahay ee dadka isugu dhibayeen hadda kor waxa la sheegay nin kuwii lacag badan lahaa zaka muusan bixinaynin waxa la zakada bixi uu toobad keen wuxuu zakada waa bixinaahay halii xisaab waa loo xisaabi nimay wuxuu waa badanta discount li sameeyo hal zakada xuquuqullah waa discount wax leeyahay ma jirto waa xuquuqullah waa ilaaha xaqan iskale ilaahana kugu waajib miskiinta iskale masaakiinta hadda maanta hadii kugu waajibto 10,000 leeda $250 adiga ma leedihid 10,000 haysatay sanada ka soo wareegtay $250 xoolaas ku jiro wallahi adiga ma leedih masaakiinta iskale haysashaalka haysanaysa dambi kugu ta aakharane naari kugu noqonayn marka zakada aad loo ilaaliyo dhalinyarta bidaat alxamdulillah maalmaha waa la shaqeystaa professional soo baxay dad waxa soo baxay si fiican lacag kan fiican soo gasho truck driver soo dad badan oo lacag badan haysta soo baxay alxamdulillah ilaahu barakeeyo oo ku faraxsana Soomaaliya inaan soo gal level middle class inaan soo gal aad oo faraxsanahay laakiin ugu 10,082 gram lacag hadii sana ka soo urid zakka laga rabaa هذا فهم ويسأل حساب علماء ماشي جوكت الحرير إيه حسابه أنت أصلا هيستا والله أعلم. سؤال شان الجبر يا سقرت وحل ده هاي شيخ نينكيجا مدل بس صنعة موصل يتجن لنا جوش على سريرته إن بدنا أسكت دياري إن بدنا حتى لكن أدب يصير كذا شيخ أنت أنك بدل ما أتكسن كرو محاسمية محاطرة بسم الله ورنتي وأرلعنا حواي لو مدي نقونيساي نينكن وحنونسين هي أمين وجبر الربي لا بضاس مدواي هدو حنونسين هي وحنده لها نينكن هل داويو بختار حتى جو هاي سود داوي الحمد لله حول بوافض إله وافضي وحول بالله وافضي بختار حتى هاي سود داوينا على صوصينا فيتامينات على صوصينا هدو حنونسنين حتى هدو حنونسنين أسيجر من جبديس حاسكيس حتى غيرت تراو قلنيو مش أنا تجينا هتراو هدو دخاتير سومالي كبقى دخاتير تأجانب تأوتو جابي وحيس دور بقى أسميست لكن هيسوسو داويو هدو حنونسين هدو سن حنونسنين أي نعيب أي كتمد ماشى رجع قاركض وحالة جابي حاسك مركون نوعه محو سمينا ودي بس إيدا قدل بطفوريتانك أو أسيجا أهلو إيدن وسمينا هذه نعيبتان نعيب أي كتاهينه نينكاس ودنبيلا واحد إلهها كبقو جبر ولاشيس مسلمات يوساس وقلين جبر على هذا حي ولا لنا ولا هذا مجعلت جبر هذا برساس لو سميه ولا عشان أساس لو سميه مجعلت هدو حنوسين وحدي لها السوداوي هدو حنوسين يبدرك على كتاهينه وحدي لها إلهها كبقو أساس سميه جبر ده يسويرت محا حكم كذا جورك أخي وحيابه وجو مهم سلسو جور سيد وحوايه إنه وقف شهودي سوقت حلال وكوجت طب ماشي جبر أنتي سنجورسن نيكو حاربة أنا لو جبر أنت هذا نجورسن ما ليس حتى نوي هيستي وحي عنتنا وي هيستي مركز سجورسن عنتنا كامرة بيل جيف كلير كامرة وحكويني كعربته هذا نسمين كن شيء ممكن سمين كريد أما لقطة هذا مركور هلا جري جبر ده مركز لبا أوبشن إلى هذا هاي هدينيك دعوة إني سو داويسو إيكو عاوسو حدي أردت نسوس داوينين أو موسمينين حق وحيقول هذا بقول كي وبقول لي مدح هذا كقاضت هدود دي ده حتى فسخ على سمينا محكمة الإسلامية تيجي سمع علماء ده وتيجي أرنتي وشيء عيب ما جرت تاس
hadduu edab darro u sameynayana sidoo kale xaq waxay u leedahay inay tiraahdo kale waa ku sabra ama dii kale inay tiraahdo kale maxaa la dhaha waa aga baxa runtii tan waxay xasuusay maalmo dhowad gabar ay soo wacday oo dhihi sheekh waa ninka dhib uu igu hayay waa ma yimaado wax kastaan sameeyey waa tan 2 sano taas dhowr sano ay ahayd waa ka badnaa 2 sano waa ka badnaa marka maxaan sameeyay anna waxay tan ninka u baahanahay dan dalbaan ku dhahay hadii aad waa la hadash u diidaysan oo dhin ka baqaysan finto ku dhacday furitaanka waa dalban kartaa ku waxay tirmay marhab inaan dalbado because ilma horena waa leeyahay waa si ku horeey asayna ilma leey marhab guriga inaan mid sameeyo kale runtii arintaas gabadhaas xanuunay ku dareensiinaysaa marka gabadha walaasha ha ku qasbin inay ku noolaato dullinimo adigoo awoodid inay garab gashid khayr Allah ku siiyo wallahu a'lam soonka maalmaha ayaa biidka maalmaha cad in la isku xijiyo maqasaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii bil walbo 3 maalmood ka soomo wuxuu la mid yahay qof sanadka dhan soomay saddexdaas maalmood axaadiid kala jirto oo qayidayso dhihayso kala ayaamil biidka 13 14 iyo 15 axaadiid saas u qayidaysa jirto ayaamil biidka marka qofka haduu awoodo inuu soomo waxa fiican maadaama xadiid kale ay ku soo oro 13 14 iyo 15 saasa fiican haduu awoodin laakiin qofka 13 14 15 ama uusan garaneyn dadka qaar kood hadii la weydiiyo maan taariikhda meeqa waay saacadu fiina wuxuu kule maanta waxa waay waa 8 December oo bishii lagu jiro islaamiga ma beeqaan laga yaabaa inay tahay haduusan garaneynin bil walba marka 3 maalmood ka soomo 3 maalmood uu rabo ka soomi kara laakiin maxaa fiican 13 14 15 ka fiican laakiin haduusan garaneyn ama uu hilmaamo ama ay ka tagto ama gabadha ay dooro u joogto kale مثلا ay soomi karin 3 maalmood ay ka soomi kartaa bil walba si xadiidkaas uu soo rasuul sallallahu alayhi wasallam man saama 3 أيام من كل شهر قفكي كسوم فكأنما صام الدهر كله والله أعلم واي سؤال شان الجبر يا صغر توحي لذا هاي ننكيجا بقول كي بس عشان يسجل وحكومة مشغول سيان تلافنك مركا لا عنتينيو مركا فردق الله فرديو مركا عرورتا أي جرج جوجان هم وجا كشقينيسو مركا سريرتا حتى الجارو أو حلي جوجش الله تجو تلافنك يومات نوتا إن ودبك كده عمايني sheekhu arintaas anigu aad baa u dhibsaday dib weyn ayaan dareemayaa oo waxaan dareemayaa in wehelkiisa aan ahayn anigu oo telefonkaas wehel u yahay maxaan sameeyaa talaa mushkiladan waa jirro cusub oo soo baxday waa zaman walba waxa soo bax jirro soo baxdo jirrada zamankan hadda aan joogno jirrada soo baxday waxa way social media iyo telefoonka dhibkiisa soo baxay nimankii waxay ka caboodayeen waxay ku leeyihiin xaaskayga markasta imaa telefoona dhigta oo u jirto waxay markaa maxaa sameynaysa muxaadara dhageysanahay ku leedahay gabadhii waxay ka cabaadaysaa ninkii markuu guriga yimaado waxay ku leedahay telefoonkaas uu ku mashquulsan yahay oo waqti ima siinayo nimayahu aan dhageysano dadka family guriga joogo xuquuq wax la yiraahdo jirto xuquuqdaas waxaa kamid ah qofka kale inuu waqti siiyaa kamid ah ayno ninka waxa laga inuu mashquulsan yahay busy yahay uu yimid asoo daala imaaday iyadoo saase xaaskaaga ina waqti sida laga baahan yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam Aisha hadithi ka warinayso hadii Aisha noo warinayso waxay leedahay habeenada kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wala fariisto waxaana sheekan ku haay inaan ku sheego Aisha waxay ka sheekaysay qissa 10 dumar oo ayaamil jaahiliya dhacday hadith muzar'a la dhahay rasuul sallallahu alayhi wasallam wuu dhageystay kalimaad dhagta u raariciyay muxuu ku dhahay markuu dhameeyay kadib wuu tacliiqiyay laana xatobanka oo 10 dumar ee Aisha ka sheekaysay waxa ugu fiican tan ugu dambeeyay muzar'a la dhihi jiray laakiin muzar'a mushkiladeedii waa la furay aadina ninku amaanay rasuul sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri aniga waxaan ku noqonaa abi zar'su muzar'a u noqday rasuul sallallahu alayhi wasallam ka sharaf badan oo ka qiimo badan laakiin rasuul sallallahu alayhi wasallam Aisha qalbigeeda inuu dajiyo labadaas qof soo ma fiicno labadaas oo kala ku noqonay laakiin riwaayad kale waxay leedahay la utalliquki ani laakiin kuma furay niidi u sii dhisay marka xaaskii waqti la sii waa loo baahan yahay gabadha waxaan rabaa inaan dhaho runtii arrin jirta waa ustaad gabdhaha su'aasha waxaan keenay ninka maxaa jeclaysiiyay telefoonka markaas inuu fiiriyo xaaskiisa oo la sheekaysan idan after su'aal u baahan is weydiiyo waa runtii gabdhaha qaarkood ninka ma siiyaan masaaxa ama space oo kula sheekaysta ma siiyaan arintan waa ku dhex jira nimanka badi waa cabaadeen wuxuu kula xaaska daaimad oo rabay inaan la sheekaysto sheeka markaan bilaw dhaxdii iga goynaysa mid kale waa iga goynaysa ilaa marka dambe aan go'aan gaar uma bal sheekaysanayba hadalkeeda markii ii sheegaysan waxa waa kan soo qaba kama sameysay saas ma aha walaali adaa jeclaysiin kartid ninka inuu ku soo xiiso oo ku jeclaado adaa sameyn kartid wallahi adiga sameyn kartid laakiin adaa ka tiraahdo ninka markuu ku sheekada ka goysid markii uu kula hadlay hadalkiisa aadan dhageysanin adi marka uu sheekeynay su'aalo ay noqoto tayib telefoonku wehelka dhigana marka
telefoonku wehel ka dhigana soo ninka hadduu xaaskiisa u sheekii waayo oo waqti ay sii weysay gabdha kale laga yaabay inay iyada wehel ka dhigato ama telefoon wehel ka dhigato gabdhaha bidaat arrintan aad u soo bad gabdhaha waa cabaadooyin laakiin nimanka marka badi oo arrimahan dhex gasho ku leeyahay sheekh ma la sheekeysan kari ma ifahmayso hadda hadii cusub hadii is fahmi way markii la weynaadan runtii nolol ma jiraysa meeshaas waxaan rabaa inaan dhaho walaalayaalow inta cusub tihiin waqti isu sameeya isu sheekeeya hadda isku soo duqoodin xataa waqti isu sameeya isku sheekeeya hadii kale waxaa noqonaysa dadkii 30 iyo dhowr sano isqabay oo kadib isma fahmayno maxaa dhahay lama sheekeysan jirin ma lis fahmaynin marka la sheekeysto gabadh walaashii ninka ay telefoonka daartin oo ka soo baxo waqti si oo la sheekeyso si fiican oo la sheekeyso si fiican oo la sheekeyso hadii kale laakiin nin amar ma jeclo gabdhaha nin amar ma jeclo runta ku sheega walaashii tahay aniba nin amar ma jeclo waxaas ii soo qaba hadaa tira waxa laga inuu ku yiraaho waxa maqla iska dhigo laakiin hadaa tira walaalo arrintaas ma ii sameyn kartaa hadaa tira wallahi wuu ku istaagaa iga qaado walaalka ha ahay hadaa tira ma ii sameyn kartaa walaalo waxaas wallahi wuu istaagaa wuu ku sameeyna laakiin waxaan soo sameeyay hadduu ku sameeyo xataa laba mid waa inuu cabsi kugu soo sameynayo iyo inuu dhahayo ilaahay dartiisa ugu sameey laakiin qalbigiisa kama aha ku talagal arrintana qalbigiisa ka ahayn faa'iido badan ma keenayso wallahu a'lam sheekh su'aashani nin odayaa soo qorxuu yiri waxaan shaqayn waayay araga oo in muddo ah soo xamaashay wuxuu yiri dhallinyaranimadeedii hore iyo dhaxaadkaygii waxaan ahaa nin aan marnaba su'aal laga weydiinin arrinta gogosh hadda xaaladdu way ga daba timid haddii aan qaato dawada ragga xoojisa oo aan tijaabiyey oo aan u bogay diinta maxay ka qabtaa waa su'aal fiican waaye daawooyinkaas way badan yihiin oo la qaato laba mid ay xaaja qaacida caam ah inaan bixi wax kasta oo daawo ku saabsan haddaysan ahayn wax daawadaas laga sameeyay ama wada qalad ah loo mareynin xalaal waa bannaan tahay daawooyin badan la isticmaalaa jirto odayaasha u badanaa la dhahay hadda dhalinyarta qaarkood laga daba tagaa inay jiraan laga yaabaa qaaraan raba markii guurka galayeen oo kale daawooyin badan qaadan is xoojinayaan raba in laga yaabo daawada ma bannaanta in la qaadanayo haddii dararkeeda oo laga nabad galaayo waa ku bannaan tahay laakiin adigoo oo matalan oo dhiigga kugu yaryahay ama 80 sano markaa gaartid oo kale oo daawada dhiigga kor u qaadaa haddii oo dhib ku keenaysa wadnaha ku istaajinaysa oo kale markaas oo kale ma banaana dhib ku keenaysa laakiin general speaking ma bannaan tahay waa bannaan tahay waa la isticmaali karaa wallahu a'lam wax dhib ah yaraatay ma jirto daawooyin qaar waxaa jira laakiin xadaaf ah oo gabadha ay hadhow dhibsanayso oo ninka saacadihii loogu talagalay daqiiqadihii loogu talagalay waxay dhaafi kartaa وأول مصلحة laga fiiriyo ninka hadii oo maxaa la oo rabo waqti inuu sameeyo hadii laba mid inuu dhacfi ka tahay hadii dhacf ka tahay wax kasto isku xoojinaya uu sameyn karaa hadii isku xoojinaya uu sameyn karaa kabad badan idan afterkeed ma fiicna waxay dhahaan كل شيء ازداد عن حده انقلب الى ضده wax walba xadkii loogu talagalay dhaafay opposite-kiisa ku soo noqda dhibina ku keena laga yaabaa markaas hadii dhib ku keena caafimaad wax kasto caafimaad ahaan dhib ku keena general diinteena waxay noo calaameysay calaamo waaweyn ee noo sameysay wax kasto maskaxdaada beddelaya xaraam waa khamra noqoto diraaka noqoto wax kasto maskaxda beddelaya xaraam waa qawaacid saasoo wax kasto caafimaadkaaga dhibay xaraam waa wax kasto xoolahaaga baabi'inay xaraam waa marka qawaacidaas caamka oo la sameeyay generalkaas oo la wada sameeyay sida darteed waxa fiican wax haduusan ku dhibeynin caafimaadna ay tahay way sameeysan kartaa waa gabadha sidoo kale hadii rabto inay soo qurxiso ay daawo jilcis marsto kale tamay jilcisinayso kale ninka soo qurxiso kale oo banaan tahay hadii isdhiiso kale waxa bixira soo gashay waa timahaaga madoobiso kale waa sameyn kartaa way sameyn kartaa makeup soo sameeysan kartaa wax kasto la isku qurxinaayo oo noqonayna waxyaabaha qaar kood hadda oo Turkiga laga soo sameeyay noqonaynin marka waa banaanta markaas wallahu a'lam way sheeqow waxaan ahay nin aad iyo aad u dhaar badan maanta dhan waa dhaartaa marka dhaarta badanna dhibaato badan ay leedahay diinteenana waxyaabo badan ayaa ku soo arooray sidee ayaa u kafaara gudi karaa haddii aan ahay qof aad iyo aad u dhaarta maalin walba خير الله كسورة دارت وحلو بين قف كانوا إلى إلهي سبحانه وتعالى مجيء مبزنس كا كوجديدو كلا دارتنا حب أنت تجي بزنس ليدا وبدن والله أنت صار بركة ذاك بتجيس حتى تجي بزنس ليدا وتجيس ما قوى طبعا يوقف فديه حتى هذا كل شيء بركة ذيك قادسة you don't have to say والله هدارني مجيء إلهي كدارني دارت السيدي هذا بإن لا يرى فيها لكن قف كدان ده كلامانته والله ماشان من إيماني oon raba inaan imaado
oo raba inaa imaado maxaa laga rabaa ama aan go'aansadoo kale inaa imaado kafaara laga rabaa kafaarada dhibka jiro annaga meesha ugu hooseysan ka bilaabana bakhiilnimo way naga tahay garan waayo qof wuxuu kale waa dhaar 3 maalmood ma sooma ma 3 maalmood soomin waa laga horeey 3 maalmood jeebka ma rabo inuu wax ka bixiyo jeebku rabo hayna wuxuu 3 maalmood aan sooma hadan ma kala fogey kara ma isaas ma dhaarta waxa waaye koow 10 qofood cunta siinaysa ساعة تمر سينيسا أما هدي عادة ساعة ده لقينا وقت نصف ساعة سينيسا زمن وقت كانوا كلوا كيلي إبر بريس كيلي إبر بر كيلي إبر صاصو كلا سينيسا تم كيلي إبر سينيسا طبعا قفوضا كيلي إبر سينيسا أو عنت وقت كاسلا عنا سينيسا قفلو طبعا لعقنا مسينيسي لعق مجرتو فدية بحين كفارة معناها هذا وحاول طعام واي لو ماذا سمين كرت عنت سينيسا أما نرى وجديسا عنتو أما در وانتظر مقاسيني قفل بو حاسيني سا كيلي براسيني سا درك محاسيني درو قفو كل بسنة معوستي سيشاتي جيسا أما قميص كيسا أما محاصر والكي سيشاتي جيسا أسيني سا درك تاسو كلا سيني سا هدي آذن عنت آذن بحين كرين درنا آذن جري كرين تحرير رقم مجرت آذن دون أنا سوق دي له درس آذن حرين كرين محل مركز 3 maalmood soo galaysa 3 maalmoodna waa isku xigaysa si jumhuur ulama qabaan 3 maalmoodna isku xigaysa no break 3 maalmood waa isku xigaysa 1 2 3 waa isku xijisanaysa laakiin waxa horeysa 10 qofood cunto inaa siisid kadib waxa ku xigta tahriir raqaba ku xigto kadib waxa ku xigta maxaa laha 10 maalmood cunto dhar inaa qofka u xirtid tahriir raqaba أما 3 maalmood inaa soontid laakiin 3 maalmood yaa lagu soo ordin 3 maalmood hadaa soo miiso 3daas aad haysanina waa isku xijinaysaa si culimada qaban jumhuurka qaban wallahu a'lam gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii siqeynaa su'aashan waxay leedahay sheekh waan hubaa ninkaygu inuu aad u jecel yahay aad buu iga taxadaraa laakiin anigu dareen dhan uma hayo oo maalinba maalinta ku xigta waa sii nacayaa sheekhu ina qalbigiisa jibiyana ma rabi aniguna wax dareenan u hay malaha maxaa tala ah oo aad siin lahayd okay arintan waa su'aal oo wajiih waa aad u qiimo badan waa gabadhaas waxay ku tusaysaa gabar oo Ilaahay ka baqaysanay tahay maadaama ninkeeda qalbi u haynin rabtay aysan rabin in Ilaahay ku caasiso waa su'aal wajiih waaye gabadha waxaan rabaa inaan dhaho qofka inaan nacdi waxa keeno oo aadan u haynin maxaa la dhahay maadaama marka hore aan lagu qasbin oo aad guursatay adigoo raali aad guursatay marka hore jaceyl u guursatay ama rabitaan aad jiray hadda naceeb haduu meeshii yimaaday waxyaabo badan koos gareyn karo ku waxa koos gareyn karo ninka akhlaaqdiisa inay kugu xumaataa dhici karto laakiin hadda waa amaanto xataa ninka nin fiican waa aad ii jecel ku tiri marka ninka dhinaciisa inaysan ahayn maxaa laga yaabaa inay tahay waxa laga yaabaa inay jirto adiga dhinacaaga laga yaabaa jirada maxay noqon kartaa hormoonkaaga noqon kartaa waxay noqon kartaa jirooyinka hadda maalmaha soo batay ilay noqon kartaa sixir ay noqon kartaa intaadan final decision aadan gaarin waxaan rabaa marka hore inaad isku noqotid adiga oo isu soo daaweysid haddaadan xanuunsaneen oo in ninka naceeb ay ka noqoto adigu ma horeysid waa dhacday arintaas maxaa laga rabaa laakiin ninkaaga wax walba ka qaad xoolaha ka qaadad waa u celinaysaa rasuul sallallahu alayhi wasallam waqtigiisa gabara u timid wuxuu ya rasuulallah saxaabigaas أخلاق درنا كم إيدا دينكم إيدا لكن وحيتري ومجعلي مرحبا الرسول صلى الله عليه وسلم مركوحير أوكي هذه ساسته هاي حوله سبيرتي وكهي بالوكسي وعلي علماء هم ماشي وحكي قاتي مرك خلع برنامج كان ليراه ولا خلع ليراه ماشي على قاتي قبل حداني وهينين كذا أذن وهينين لب كان وأصيغ أوسن إهين لبا مدواي إني جرجرتو حديث جرجرين حوله وعلي ذن وحكت رنيه وكجعل احترام في عنات احترامت لكن قلبك ما هي قلبي ووريسدي وحاجه انا كوسينا مركز oo kale khuluc xaliira hajirto inta adina dambi gali lahayd oo asina kugu dambaabi laha diinteena dib ma jirto la darar wala dirar waah wallahu a'lam way en sa'ilkan wuxuu leeyahay tubo ayaa kaadi mareenka ay ka jirta oo waxaan ahay qof isbitaal ku jira en sidee ayaa salaadoodu ka garaa horta marka hore qofkaas Ilaahay caafiyo asiga inta xanuunsan oo muslimiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinayna caafimaad degdeg ah Ilaahay weydiinayna waxa soo heeray muxuu sameyn karaa qofka hadii ay ku jirto bada soo kala ku jirto kale suuq awood ku tukana haduu dadka qaarkood kale waa bixin kar dadna ma bixin karaan haduu san bixin karin muxuu sameeyna tabcan waa xira ma kulli meel dhag laga siiyay markuu xira kadib uu siisana meesha uu siisana uu tukana si uu ku awood ku tukana soo isku taahiri karo isku taahirina la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wallahu a'lam
dhinaca dumarka ayay ka socotaa oo waad ogtahay maalmahan dumarka naftirkooda waxay bilaabeen inay isqurxiyaan waxay leedahay gabadhan marka sheekhu haddii aan yara baxo oo aan aado wadanka Turkiga oo kale oo aan soo yar qurxiyo oo jirkeyga meelaha qaar aan soo weynaysto sida naasaha oo kale amba aan soo yareysto diintu maxay ka qabtaa gabadha marka waxa way laba mid inay tahay waxyaabaha hadda مثلا naasaha kale dan ka soo qaadno kale inuu waaweyn yihiin ama inuu yar yar yahay waay Soomahan hadii waaweyn yihiin aad waaweyn yihiin oo مثلا culays uu ku haayo dibna uu keenay xanuun uu keenay مثلا dhabar xanuun uu keenay waxyeelada aad waaweyn dhabar xanuun uu keenay jiru ii keenay markaas oo kale exception waay dhinaca caafimaad ahaan loo fiirinaa markaas leena qofkan xanuun ku haya overload ku haya dhabarkii xanuun dhaqaatiirtana waxay yiraahdeen qofkan inuu dhabar xanuun dhabarkiina beesha laga yaabo markaas oo kale xanuun waay laakiin waxaan xanuun ahayn waa weyn yahay waa soo yareysana dhib igu ma haya ma banaano cagsigeeda waa yaryar yihiin waa soo weyneysana ma banaano مثلا waa iga dhaceen waa soo istaajisana ma banaano waxyaabaha oo banaan waxa way wixii qofka caafimaad ahaan waa tan sheeyno qofkan waa weyn dhabarka xanuuna taas oo kale waa banaantay laakiin kuwan kale waa soo quruxsana oo kana sameysana oo kale ma banaano ma banaan tagyiir li khalqi illah waa taas tagyiir li khalqi illah waa qofku ilaahay inuu bedeli noqonaysa taas oo kale ma banaano maalmaha waxyaabo badan oo Turkiga oo ka nixaysa runtii lagu soo sameeyay taas oo kale ma banaano waxa laga dadka qaar kood inay dhahan okay timaha qofku ma beeran karaan taas ma banaantay tan xitan u banaantan aysan u banaan waa tan sheegno kale timaha qofku walaha jirra ka qaadi Sooma jirra aha marka jirra wixii jirra keento waa lagu daaweyn karaa laakiin jirra ma keenay dad kala loo wadaa dad kala loo wadaa مثلا leeyahay kale qofkan aniga waa soo weyneysana ama soo yareysana tagyiir li khalqi illah waay qofku waxaan rabaa inaan dhaho walaalay ku qanac intuu ilaahay ku siiyay irda bima qasama Allah lak sidaa ku qurux badan tahay sidoo ilaahay ku abuura wallahi ku qurux badan tahay wax kasto extra asameysatidna fool xumo iyo jiro bay ku keenaysaa fool xumo jiro ku keenay sidoo ilaahay ku keenay ku qanac intuu ilaahay ku siiyay ku farax intaasna ku ekaw laakiin kana ziyadsana kana yareysana hal jooji khair Allah idin si adduunyo aakhir waa kala badan tahay ninina uu sameynaysa waxaasna laga yaabaa asu qurxinaysid gabadhaartana isku qurxisid wax ka faa'iideysid malaha qofkan waxa doqonnimo ah ina naar u gashid qof kala sa u raali gelisid taas doqonnimo ah anina qof raali geliyo raali gelinta qofkaas raali gelina naar ku gala doqonnimo way qofku inuu ka fikiro loo baahan yahay aan dambi ku galo marka qofka iska ilaali dambiga inuu waxyaabaha xaraanta ah iska ilaali qofka intuusan sameeynin aan loo baahan su'aashina weydiiyo dadka qaar kood markay sameeyeen wuxuu kule ma sameyn karaa waaba soo sameeyay maxay weydiinay hadda marka qofka intuu sameeyna loo baahan yahay inuu sameeyna tilaabada qofka intuu qaado waxa loo baahan yahay wixiisa inuu ilaaliyo loo baahan yahay wallahu a'lam qofka hadii uu sameeyay ka waran marka dambiga waan garanay laakiin talaabo kale uu qaadi karo ma jirto qofka haduu sameeyo uusan cilmi u lahayn ilaahay uu toobad keena marka sabab toob waa furantahay ilaahay uu toobad keena toobadiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga ka timaada ilaahana taalacana wax toobad ilaahay ibn aadanka ka dhaxaysa markasna toobadu waa furantahay markaas toobada furantahay laakiin qofku marka hore inuu u qasdo amalku soo hadhow aan toobad keena ina ku dhimatida laga yaabaa taasoo kale kabaa'ir waa weynta iska ilaali laakiin qofka jaahilnimo uu galay ma yaqaan uu ka shalay dan ilaahu toobad keen adii ilaahay dhaxdiina qof dhax gali kara ma laha ilaahay ku abuuray waa qof dhaxdiina gali kara haba iraatay ma jirto wallahu a'lam waayahay dawdiyalkaas waxa uu ahaa Dr. Sheikh Ahmed Yamani oo barnaamijka su'aalaha diiniga ah maanta martigu ahaa waxa barnaamijkan daadihinayay anigoo ah deeq darajo intii aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmeen waxa idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan jeclahay in Dr. Sheikh Ahmed Yamani aan u mahadceliyo aad u mahadsantahay jazakallahu khayr barakallahu fiik